ku soo dhawaada magaalo xeebeedka Eyl halkan aynu imiga joognaa waxa weeye qoorigii badda ama xeebta Eyl waxa weeye magaalo xeebeed aad u taariikhi ah oo waqti dheer soo jirtay maanta halkan ayaynu waqtigeena ku qaadan doonaa magaalada laakiin intaynaan hore u galin waxaynu isku dayeynaa inaynu waqti ku qaadanno meesha la yiraahdo badda marka ku soo dhawaada Eyl waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo qaybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo qaybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo antiyay macaan waa midaan hoy laga oranay antiyay macaan waa midaan hoy laga oranay waxa halkan ila joogeen in aanu safarka soo wada galnay oo ka yimi meel aad u fog si uu mas'uulno kale u soo booqdo halkan wariyaa iska waran waa fiicnaa seetay ma sha Allah magaca Aryan xagee ka soo jeedaa salahan waxaan ka soo jeedaa Ethiopia amista haye Soomaali Ethiopian baad hay Ethiopia kuma qaadashaa waa ku hadli karaa maxaad ku oran kartaa mas'uulno kale maxay Ethiopia ku noqonaysaa ku soo dhawaada Eyl welcome to Eyl welcome to Eyl oo tafi Ingiriisida naqaanay waa ku soo dhaweeyaan Ingiriis ma wallahi waa ku soo dhaweeyaan ninkan ayaanu meesha wada gali doonaa marka insha Allah gudaha meesha wada gali doonaa saka waran safarku soo ahaa safarku ma sha Allah uu fiicnaa inkasta board naftana kaga soo baxay burco soo martay waxaan ilaaway meesha la yiraahdo burco waxa soo mara tog dheer marka togaas biyaha badda waxa uu kaga shubaa halkan Eyl marka anigoo reer burca waxa qiimo ama sharaf weyn ah inaan imaado halkii mas'uulno kale togii burco soo marayay oo badda Hindiya kaga shubayay marka Aryan aynu gudaha galno insha Allah gudaha wax ka arki doonaa waxa aynu ku guda jirnaa meel beera waxaynu soo yara dhaafnay tuuladii daawad marka waxaynu ku soconnaa meel ila oo lagu dabaasho xagga hoose ah marka aynu bal hore u sii soconno waxa iga soo waxay markaa ka soo dhamaaday beertii aynu ku wareegaynay buurahan iyo hawshooda intan ayaan ku soo koobaya waxa aynu ku noqonaynaa halkii aynu degenayn si aynu bisano kale galabta ama caawa meeshii aynu doonayna kala aynu tagno
meesha ay la yiraahdo waxa yimaada dalxiisayaal oo aad u tiro badan oo imika waxa nala socdaa dad qurbo jooga oo masalno kale ay ka yimi meel fog si ay masalno kale u dalka ugu dalxiisaan safarkan waxa noo suurta galiyay ama masalno kale laga caawiyay inaan dalxiis sidana sameeyno shirkadda la yiraahdo Mogol Tourist oo gudoomiyahoodii yahay Maxamed Tigay sheekh imka nala socda nin mas'uul imka nala socda weeye marka galabta marka aynu xaga ku noqono buuraha ama wixii magaalada dhexdeeda inooga hadhay ayaynu sii sameeynaa marka insha Allah aynu galabta door wanaagsan anigana kajogiyo hakujabini maduran galab wanaagsan degdeg baan ku socdaayo waxa aynu tagaynaa meel museum u ah oo midno kale taariikhda magaalada lagu ilaaliyo iyo hidii dhaqankan lagu soo bandhigo oo buurta xaga weeye marka waxaan doonayaa inaan midno kale inta yar aan uga faa'iideysto wanigii mar hore sheegay midno kale biyaha toga burco soo mara intii rabca ka faa'iideysay oo garanaysa biyaha togeena soo mara magaalada burco ee Hargeysa iyo Soomaaliland oo xaga ka soo mara meesha uu badda kaga dara waa ka biyaha aad arkaysan imika waxay toos u tagayaan meesha la yiraahdo badda aan bal isku day inaan yara dhawaado meeshii badda loo jirina xaga ayay ku taalaa xagaas la maraya xagaas ay kaga shubtaa marka biyaha aad aragtaan waa kuwii ka yimi xaga waxana badda wax weeye badda India of course meel bila asalo buura baa la koraya marka waxaan markaan xaga tagno sare ayaynu hanas hadaan masalno kala nahay qolada reer burco laba wax ayaana noqon mid waxa weeye dabaasha oo waxa la yiraahdaa reer burco markay meel bad la tagaan way isqooyaan ma dabaashaan talabaadna waxa weeye buur koritaanka imika buur baynu maraynaa buuraha koritaankoodana ma naqaan oo ku rafana waa sababta imika la xisanahay waxay la socdo team garooba ka socda jigjiga wuxuu caadi bay kala gargaranayaan meesha oo si wacan bay u soconayaan laakiin wali aniga ugu dambeeya ee waa inoo marka aynu gaadhno madxafka way dheertahay أنا وان مرة يا حبيبي أنت مسوي رأي كرو sama ya waxaan tahriib ahayn استرونيس حاجة استرونيس تصمع ايه عسل دوبي طيب يوتيوب كم يا حاجة تقارك حاجة تقارك نوش حاجة تقارك تمام كويس أنا أبي رأيك ما يدخل ذنب مريض ما عادي أقدر أقدر أحلى نينو مريض تاني لا لك فرنت هلنا نمت نوش حاجة تقارك تنيو ليش تمسكها أنا هذا كور فضل ساعة ما تري مرة بدأ ها فحرنا تعرفني أنا فرح يدي هذا النفط هذا ماي
ugu dambeyn waynu soo gaadhnay meeshii aan doonayay in aynu ka duubno misalno kale waxa weeye museumkii waxaan isku dayayaa bal in aan misalno kale toor idinku dhex mariyo iyo sida ay alaabuhu u yaalyaalaan waxa weeye runtii meel aad u qadiima oo aad wax kasta ka helayso marka bal waxaad isku daydaan wixii aad ka garataan inaad commentiska magacooda ku soo qortaan waxaan doonayaa intaynan magaalada ku noqon in aan idin baro qof agteeda qiimo weyn ku leh oo misalno kale wada shaqayntan ama misalno kale hawshan aanu wada wadnay intaanan isaga idin barin qofka aanan idin barin kadib baan doonayaa ka dhigo waxaan doonayaa inaynu marka aynu Garowe tagno cunto ku caana ay caan ku tahay reer Garowe ama Puntland si wacan looga cuno inaynu hodheelada kamid ah aynu misalno kale waxa ku cuno marka intaynan taa gaadhin waxaan doonayaa inaan qofka idin baro marka waxaan idin barayaa Khadra waxa soo dhow ma dhawinta ka badan aye Khadra waxay kamid tahay dhalinyarada u heelan in ay ka shaqeeyaan horumarka bulshada iyo dalkaba waxa ay wada oo aan imika hawshiisa ku jirnaa barnaamij la yiraahdo socdaal ama loogu talagalay in misalno kale xeebaha laga duubo wax marka iyada ayaan doonayaa inaan kuna soo dhaweeyo weydiiyana sababta waxa ku kalifay Khadra soo dhaw وما تصنت ولا لا أحمد هو محبها ومد كم إذا دقها وقرح بدن إلى هاي أمدي سياسية ديجانا الصومالي دو حيلين مقالين أدو وين وحباء لبد حبضنا ومرابدون كينديان كأي بدعس أنا جا وجددي دكوا دو حوين دول مر إنا يا هاتي دل برشة ومرك لبعض إنا الصمد قطعوا تذكر لي ردا الصومالي دا أمريكا الدنيا دتشوجان وعشقة إذا إنا تبين سمايو إنا واحد دوبو إنا واحد دياريو عشقة إذا الصمد إذا كسمي سنة مقالة قرح بدن بين إن شاء الله سمين دونا aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wacanaya ayuu soo koobtay insha Allah waa inoo iyo marka aan Garowe ku noqono Garowe marka aynu hawsheeda dhamayno aynu misalno kale alaabta aan sheegay aynu wada cunana waynu ka dhamaanaynaa vlogii aad baan maalin wacan baan soo qaatay waxaan rajaynayaa in idinku maalin noocaas oo kale ay la soo qaateen waayo dhowr meelood baan soo wada marnay marka waa inoo iyo Garowe aad baad mahadsantiin halkan waxa weeye halkii ugu dambeysay aynu muuqaalka ku soo koobaynay waxa weeye meesha la yiraahdo Target Center cunto ayaynu doonaynaa casho inaynu wada cunno marka cuntada aynu wada cuni doono waxa weeye shay ama alaab marka halkan la joogo ay caan ku tahay in qof kastaaba uu cuno waxa weeye bahal magaceeda la yiraahdo argosoto oo aad imika arkaysaan argosotada magaceeda af Ingiriisiga waxa weeye ama lagu yaqaan lobster waxa misalno kale dalkeena ay ku tahay qiimaheedu wax u dhow $18 ama adigu $12 meelaha
halka ay Abu Dhabi iyo caalamka ay ka tahay $80 sinxiga yar marka baashan waxa laga helaa badda siiba gaar ahaan eel iyo meelaha buuraleyda badda leh xeebta leh marka waxa weeye bahal faa'iidadeedu aad u badan tahay waxaana noqonaysaa intanu ama cuntadan ama wada cashayntan wada cashaynayna wixii aynu muuqaalkeena ama videoga aynu inta badan soo wadnay ku afmeerinay mar dambe sarki mayno muuqaal soo socdo mooyee marka waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah aad baad u mahadsantiin sidii quruxda badnayd aad u daawanayseen waxaan kaloo doonayaa inaan aad ugu mahadnaqo maamulayaasha ama teamka ka shaqeeya meeshan la yiraahdo Target Center oo si wacan noo soo dhaweeyay idinkuna haddii aad timaadaan sidoo kale idin samayn doona aad iyo aad baad u mahadsantiin habeen wanaagsan